walba mar walba waxaan nahay cirgaba nabadha lagu wada joogo sababta aan u lahayna waxay tahay meesha beelaa wada dega daarood iyo isugu jira saaq inta kaliya lagu wada joogi karaa waa nabad laascaanood bay ka socotay magaalada tana la duqaynay maanta Muuse bixitan duqaynay anagu waxaanu go'aaminay ismada 330kii guurtadii halkan joogtay dhamaantood waxaanu qaadanay go'aan ah inaan sanaag xabad laga riyo hal ay dadka cirgaabooda degan anagu aanu ka mid nahay oo deegaanka yaala waxa inoo ballan nabad waxa inoo ballan wixii dhintay wixii nool inaynu u talino waxa inoo ballan nin gaashaama ka yima gaashaama ka soo hadlaya ma khusayso bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin anaga go'aanka iyagu waa inta uu sheegay Garaad Cabdisalaam waxaan joognaa Laascaanood dadkan Soomaalida waxaan u sheegaynaa dadku arday miyir qabaan anagu bilow ilaa dhamaad jiida beelaha wada dega ilaa Ceerigaabo mar walba waxaan lahayn waa nabad ninka maanta yiraahda shar bay fidnay ka shaqeynaya tawabadaad moodo inaan dalka war badan ka hayn horena waad u ogeydeen arada wixii ka dhacay maanta Laascaanood wixii ka dhacay la ogaa mar walba waxaan nahay cirgaba nabadha lagu wada joogo sababta aan u lahayna waxay tahay meesha beelaa wada dega daarood iyo isugu jira saaq inta kaliya lagu wada joogi karaa waa nabad haday qolo istiraado adaa haysanayo qolada kale meesha ka baxaysan waxba wax kama jiraan intaas aan loo garareyn hadeerna intii baan u leenahay waxaanu meesha ku baaqaynaa nabad waxa ciidoole marxaati ka tahay horeyso iyo dambayso nabad jabintu inay ka imanaysaa dhinaca beelaha isaaq haday musaabo kor tahay haday tiimaanti loo way tahay inkastoo tiimaanti loo aanu arkayno ninka odaga ah oo hadda garaadku sheegay oo meesha yimi inuu fidnada isagu abuuray aniga waxa leeyahay leeyahay ninka wiilka dilay oo habarawal waa dhintana waa leeyahay yiri sarkaal baa waa si leeyahay leeyahay ilaahay baan ka baqayaa qaar ba markay hadlayaan sidaan islaam hayno hadla waxa leeyahay yiri ninka inanka dilay oo fidnada abuuray waa sarkaal habarawal oo laga tagay magaalada ninka waxa loo qorsheeyay inuu meesha xaalad ka abuuro oo dadka wada degan oo masaakiinta ay istilaan waa si warku nagu soo gaaray waa habarawal baaniga leeyahay yiri warkaan waan ka hayaa waa ka waaya waxaynu isla ognahay horeysiga dambayso xabadaan qolada isaaq ka ibari jiida inuu ka bariyay oo maaydi maalin kasta oo wax dhacaan anagu waxaanu ilaahay lagu guuleeyay inaan dhinaciga xabadi ka iman aad waxa loo hadalhayaa maxaa qolada tan u hadli weeyay war maxaa loo hadalaa maalinta arinta la diyaariyo subaxdii waxa imanaysa xabad jabin habeenaan wada hadalay niman deegaanka yaalo oo kulli qoliyaha habar Yoonis oo Saacid Yoonis iyo Muuse Ismaaciil iyo qoliya kale oo yana meelaha ka soo hadlayay oo maalintii wax dhacaan ahayd waxaan isla go'aansanay aan qoro waliba caaw waxa xakamayso iyo aan bari waxba dhic salaada markii laga soo baxay in odaya meheradiisa furaraya la dib halka dadku ha fahmeen in qoladaas cirka ku siilaale hadii ka dambeysay halka ay dhowr casho qaadatay labadii la jabiyay shalay wixii dhacay waa looga marka cid aad u raadinaysa maxaa loo hadli waayo fahmo baashu mar walba meesha ka xidhmi laadahay waa dhinaca hadeerna waxaan u leenahay tii hore weeynu soogeyn qolada musaabo kor bay ahayd intaasoo jeer baa falku iska daba tagay inta dadka waa xakameynay maalin kasta wixii odaasha ay ballan qaadeen waxba kama shaqeyn waxaas oo marka laga soo gudbo dhinaca iyaga niman daarooda halka jooga waan wada hadalay iyaga lagu wareejolay nabada dhinaceena idinka ina matala shaqeeya nimankaas hawsha iyagoo wada baatiisha lagu furay reero iska maraya meel xagal baa inta halka loo galay xabad la mariyay kuwa askar sheeganaya guryaha dadka intay dabada la galaan bay waxa dadku warkeeda ka dheersay waxbayaan ku sii dheeraan anagu waxaanu diyaar u nahay dhinaca iyaga adaan nahay beelaha daaroodka dhinaca iyaga waxaanu diyaar u nahay xabad joojin iyo nabad maaha afkan qura dhulbaahanta qura ku hadli mayno anagoo ku hadlayna dadka deegaanka dega oo ka kooban beela daarooda harti iyo reero kale oo daarooda weheliya dhinaca iyaga waxaan ugu baaqaynaa xabad joojin iyo nabad qolada habar Yoonis oo hadlaysay ama garixisna ka dhabeeyeen xabad joojinta hore u sheegay hal suldaan weyn baa hadlayay suldaan Ali baa leeyahay baa la yiraahdaa laakiin dadka hadaan wareystay ninkii talada hayay waxa leeyahay yiri Maxamed Xirsiqani baa ahaa uu xanuunsaday waayo odagaasi hadalkiisu ma ahayn in weyn oo mas'uul hadalkii ma ahayn
قرحش ورده وحسك عليا قرحش لا سعود قرحش عرقابه ما ودا دقي عرقابه واحد شيء اسمع يا لا نمن موسى اسماعيل iyo niman aan iskuulka dheenga wada dugno ba عرقابه degan أنا وحلا يدرس عرقابه degan أنا وأنا كم من هاي degan كيالا وحينو بلنا النبض وحينو بلنا وحي لنتي وحي نولنا إنه طلينه وحينو بلنا نقاشا مكي ما قاشا ما قصده هلا يا ما خصيصه متكي من مهلنا ما خصيصه وحي خصيصة دتك degan كيال وعن كلام مارمين وقريوه بدوبيان وعروض تضل الله ينيو وحنورن لها إنتي الناس يعني ترى يسوقون نمادنو أنا نكتشفنا ترى بديت آديات بعد ما هالسنتين حقنا عراد لجماعة هورين هراء لو وجا تتقارب بقى لوكا كسوقر يمحل واحد لواي واسكت اللي يراها واحد بدل أوجين حبض الله سبحانه وتعالى طبعا ذات كله واحد قاعد سدين إن العرقة بحب اللي قري لا سبحانه بيكسرتي مجال هنا اللي تقيلي ما أنت ومسبح تندقيني أنا أقول حنقول السماء صدقي صدق كي قلتي يالكن شوكتي لما أنت يوم حنقول هذا النقاعنا إن سنك حب اللي قري